بسم الله الرحمن الرحيم كل وعلى ونكسن داوديال halkani waa telefishinka dalsan muqdisho waxaan ka soo gudbinayaa barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waa xad taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 bisha Juun sanadka 2025 warbixinada daqiiqada soo aadan barnaamijkan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka ah tababaraha kooxda Manchester Ruben Amorim oo dalbaday laba bedel oo degdeg ah kadib aftuubka laga cabsi qabo in Manchester United ay kala kulanto naadiga Tottenham oo xiiseynaysa Beryl Mbeumo barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaa soo gudbin doonaa kooxda kubadda cagta Liverpool oo 100 milyan oo euro mar kale gelinaysa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda si ay u soo qaadato ciyaartooy ciyaara kooxda Newcastle United iyana barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaa soo gudbin doonaa kooxda kubadda cagta Arsenal oo 50 milyan oo euro Chelsea kaga aftuubanaysa daafac oo ciyaara kooxda kubadda cagta Ajax iyo barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa waxyaabaha kale aan soo gudbin doono waxaan qayb ka ah tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ballanqaadkii ugu horeeyay u sameeyay jamaahiirta kooxda Real Madrid iyo barnaamijka ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa laacibka ciyaara naadiga Atletico Bilbao iyo xulka qaranka Spain Nico Williams waxa uu si cad u muujiyay rabitaankiisa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona iyo barnaamijka ku soo qaadan doonaa kaba marna wargeysyada waxyaabaha ka soo qorayaan suuqa iibka ciyaartooyda iyo natiijooyinkii ka soo baxay natiijadii ka soo baxday kulankii furitaanka xalay tartanka kala FIFA World Cup iyo sidoo kale waxaa soo qaadan doonaa kulamada caawa tartankaasi laga ciyaari doono isku bilaabo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha Dalsan TV tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Ruben Amorim ayaa waxa uu dalbaday laba bedel oo degdeg ah kuwaasi oo bedelaya laacibka Beryl Mbeumo kaasi oo laga cabsi qabo in Manchester United ay ka aftuubato kooxda kubadda cagta Tottenham oo la wareegtay tababarihiisii hore ee Thomas Frank Ruben Amorim ayaana laba xidig oo ka ciyaarta gudaha Premier League waxa uu ka dhigtay bartilmaameedka ama bedelka laacibka Beryl Mbeumo oo si dhow Manchester United loola xiriirinayay maalmihii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay aqoonsatay laba door oo sare oo ay ku bedeli karto Beryl Mbeumo xagaagan iyadoo laga cabsi qabo inay kooxda Tottenham ay ka aftuubato laacibka karabka kaga ciyaara naadiga Brentford 25 sano jirkan weerarka ciyaaraha ayaa si aad ah loogu baahan yahay kadib olole cajiib ah oo uu ku dhaliyay 20 gool iyo 9 caabin taas oo u dhiganta gool ama caabin 123.3 daqiiqo kasta oo uu garoonka ku jira laacibka Brentford u ciyaara si kastaba noqotee iyadoo hal sano ay uga harsan tahay qandaraaskiisa naadiga Brentford isagoo sidoo kale haysta ikhtiyaar uu kordhiyo ilaa 2027 Mbeumo waxa uu noqday mid ka mid ah ciyaartooyda loogu baahida badan yahay waqti xaadirkan suuqa galiibsiga ciyaartooyda inkastoo ay horeba ula wareegtay Matthias Cunha Manchester United waxa ilaahay hadda laga soo diiday laba dalab oo ay ka gudbisay Mbeumo kaas oo ahaa kii labaad oo qiimihiisuna uu ku cayay 50 milyan isla markaana lagu darayay 10 milyan oo gunooyin ah balse naadiga Brentford ayaa dalabkaasi ka soo diiday kooxda Manchester laakiin iyadoo Tottenham ay magacaawday tababarihiisii hore ee naadiga Brentford Thomas Frank isbuucii hore kooxda ka dhisan waqooyiga London ayaa hadda waxay ku soo biirtay tartanka lagu jiro xidiga karabka ciyaara waxaana ay sare u qaaday dalabka United ay ku bixisay ama ay ku doonaysaa laacibkan 65 milyan oo kani isla markaana waxay ku dareysaa 5 milyan oo kani oo gunooyin ah oo isla markaana dheeraad ah ayay naadiga Tottenham waxay hor dhigaysaa kooxda kubadda cagta Tottenham si ay Manchester ay kaga aftuubato laacibka lagu magacaabo Beryl Mbeumo iyadoo Tim Tolkien ay fahansan tahay in Old Trafford ay had iyo jeer ahayd meesha uu doorbidayo Beryl Mbeumo xiriirka xoogan ee ka dhaxeeya Thomas Frank iyo Tottenham ayaana Manchester waxa ay ku qasabtaa leeyahay inay eegto bedelada suurtagalka ah ee laacibkan warbixin ka soo baxday ESPN ayaa waxa ay shaaca ka qaatay in tababare Ruben Amorim uu kooxda ku riixayo in ay tixgeliso xidigaha Crystal Palace Ibrahim Cisse iyo xidiga kale ee bartilmaameed kuwaas la kooxda Tottenham ee Anthony Semenyo kaas oo ciyaara naadiga Bournemouth labadan ciyaaryahanba waxay isku kubad yihiin Beryl Mbeumo waxaana ay awood u yeelan doonaan inay muujiyaan sida mid ka mid ah lambar 10 ugu ciyaaro isla markaana uu ku wacan yahay hanan ciyaareedka tababare Ruben Amorim kaas oo aad u jecel yahay inuu ku soo baxo ciyaartooy boosas badan ciyaari kara mustaqbalka Anthony Semenyo ayaa ah mowduuca la isla dhaxmarayo kadib ciyaareed adag oo ku qaatay naadigiisa Bournemouth halka Ibrahim Cisse oo qab ciyaareed fiican ku jiray Palace intii lagu guda jiray ololihii 2024 waxa uu dhaliyay 14 gool sidoo kale waxa uu caawiyay 11 kale 43 kulan oo uu u saftay kooxda kubadda cagta ee naadiga
Crystal Palace dhamaan tartamada xilciyaareedkii la soo dhaafay labadaas xidig ee Anthony Semenyo iyo laacibka lagu magacaabo Ibrahim Ise ayaana waxay yihiin labada dalab ay Manchester United ay ku bedelanayso laacibka waayihii ugu dambeeyay ee shaashada u saarnaa ee Beryl Mbeumo kaasi oo laga cabsi qabo inay ka aftuubato kooxda kubadda cagta Tottenham oo la wareegtay tababarihiisii hore ee Thomas Frank kaasi ay kasoo qaateen naadiga Brentford. Manchester ayaana tababareeda waxa uu maamulka kooxda ugu wargeliyay inay la soo hadlaan laacibiinta Ibrahim Ise iyo Anthony Semenyo si midkood ay ugu bedeshaan laacibka Beryl Mbeumo haddii ay ka qaadato kooxda kubadda cagta Tottenham. dhinaca kale naadiga Liverpool ayaa mar kale waxaa lagu soo waramayaa in 100 milyan oo euro ay gelinayso suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyadoo xiiseynaysa laacibka u ciyaara kooxda kubadda cagta Newcastle ninka lagu magacaabo Anthony Gordon. Liverpool ayaa waxa lagu soo waramayaa inay isku diyaarinayso in ay burburiso 100 milyan oo kani isla markaana mar kale ay suuqa iibsiga ciyaartooyda ay geliso iyadoo horey ula soconay in Manchester Liverpool ay 150 milyan ay ku soo qaadatay laacibka lagu magacaabo Florian Wirtz kaasi oo ay ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen waxaana laacibkani Manchester United Liverpool uu ku soo wajahan yahay maalmaha soo aadan iyadoo la filayo wixii ka dambeeya maalinta bari ah inuu tijaabada caafimaadka u maro laacibka Florian Wirtz ciyaaraan naadiga Bayer Leverkusen. sheekada xagaaga ee suuqa iibsiga ee ugu weyneed ayaana ugu dambeyn waxay cadaan doontaa dhaqdhaqaaqii ugu weynaa ee taariikhda kubadda cagta Ingiriiska kadib markii Liverpool ay ugu dambeyntii heshiis ay la gaartay laacibka Bayer Leverkusen u ciyaara ee Florian Wirtz kadib markii ay arkeen saddex dalab oo ay soo diideen naadiga Bundesliga ka ciyaarta Bayer Leverkusen. Liverpool ayaa ugu dambeyntii waxay shaacisay in heshiiska lagu gaaray 100 milyan iyadoo lagu darayo 16 milyan oo dheeri ah wadar ahaan waxay noqonaysaa 136 milyan ama 157 milyan inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in heshiiska dhabta ah uu ku kacayo ilaa 150 milyan marka lagu daro ama laga saaro gunooyinka laacibkaasi uu qaadanayo. heshiiskan ayaa burburiyay lacagtii rikoorka ahayd ee kooxdan Liverpool isla markaana xilliga 75 milyan oo kani ay ka soo bixiyeen kabtanka haatan Liverpool u ciyaara ee Virgil van Dijk 2018 waxaana uu noqonayaa Florian Wirtz kan ugu qaalisan kooxda kubadda cagta Liverpool isagoo rikoorkaasi kala wareegaya kabtanka kooxda Liverpool ee lagu magacaabo Virgil van Dijk. haatan waxay u muuqataa in Leeds ay diyaar u tahay in 100 milyan oo kani mar kale ay geliso suuqa iibsiga ciyaartooyda markii labaad maalmo gudahood iyagoo u dhaqaaqaya garabka Newcastle ee Anthony Gordon. warbixin ka soo baxdaysan ayaa sheegaysa in ragga Arne Slot ay si weyn uga fiirsanayaan inay talab 100 milyan oo kani ah ay ku talbadaan wariyaanka reer England iyadoo wada hadaladu ay horey u yeesheen labada kooxood oo ku saabsanaa guuldaradii xagaagii hore 24 sano jirkan ayaa kaliya qandaraas cusub oo waqti dheer ah u saxiixay kooxda St James Park bishii October ee la soo dhaafay isagoo kaga soo biiray dhinaca Everton 45 milyan oo kani bishii Janaayo 2024. mar kale wuxuu muhiim u ahaa kooxda Hawe xilciyaareedkii hore isagoo dhaliyay 6 gool iyo 5 caawin iyadoo Newcastle ay u soo baxday tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League xilciyaareedka soo socda. inkastoo ay maqbiyaaska ay awood u leedahay in Gordon uu soo bandhigto heshiis kordhin isla markaana miiska ay u soo saraato laacibkan si ay kooxda u sii joogo Tim Tolkien waxa ay hore u sheegtay rabitaanka ciyaartooyga ee u ciyaarta Liverpool inay tahay mid aan meesha laga saari karin. taa ayaana Liverpool waxa ay ku sii riixaysaa inay laacibkan ay soo qaadato iyadoo markaana 100 milyan oo euro ku doonaysa laacibka weerarka ciyaara naadiga Newcastle iyo xulka qaranka Ingiriiska Anthony Gordon oo ay doonayso inuu noqdo saxiix kale oo weyn oo Liverpool ay sameynayso intuu furaya suuqa iibsiga ciyaartooyda ee xagaagan. dhanka kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 50 milyan oo euro waxa ay kaga aftuumanaysaa naadiga Chelsea daafac u ciyaara kooxda kubadda cagta Ajax ee ka ciyaarta horyaalka wadanka Netherlands. Arsenal ayaa laga yaabaa inay xato bartilmaameedka ugu sareeya ee daafaca kooxda kubadda cagta Chelsea ila wareedyo ayaan u sheegay Tim Tolkien sida ay Arsenal ugu bootay heshiiska hakadka kale oo ay Chelsea ku doonaysay daafaca kooxda Ajax. kooxda ku ciyaarta Stamford Bridge ayaa doonaysay in xidigan uu kala qayb qaato koobka kooxaha adduunka ee ka furmay gudaha Mareykanka. Blues waxay haad u xiiseynaysaa daafaca Ajax ee lagu magacaabo Gerald Hedo sida aan markii hore soo sheegnana bartamihii bishii
May kadibna waxaa la xaqiijiyay in dhamaadka bishaasi laacibkan ay Chelsea ay soo qaadanaysay si kastaba noqotee iyadoo kooxda ay haatan tirada ay saarayaan dhacdooyinka ka soconaya Mareykanka ee ku aadan koobka kooxaha adduunka waxay ku wargeliyeen kooxda reer Holland in wada hadallada ay dib u bilaaban doonaan iyagoo dareen buuxda leh isla markaana eegaya markii uu soo dhamaado koobka kooxaha adduunka inay dib ugu laabtaan wada hadalka dhanka kale kooxaha Premier League ka ciyaara ee xiiseynaya waxaa kamid ah Liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa isticmaalaysa hakinta si ay horumar uga sameeyaan saxiixa laacibkan Liverpool iyo Newcastle ayaa sidoo kale iyaguna xiiseynaya laacibkan laakiin Canaries ayaa qaatay talaabooyin muhiim ah maalmihii la soo dhaafay kooxda Mikel Arteta ayaa wada hadallo aad u wanaagsan waxay la yeelatay wakiilada Joel Heto maalmihii ugu dambeeyay si kastaba noqotee waa in la sheegaa in xiriirka labada dhinac uu u socday labadii sano ee la soo dhaafay waana sababta in shuruudaha shakhsiga ahaaneed loo arko mid dhab ah oo isagu dhici kara qandaraaska 6 sano ah ayaa laga wada hadlay waxaana uu mahad celiyay daafaca dhexe ee reer Netherland nadiga Arsenal inkastoo uu wali si taxadar leh loo qiimeynayo mashruuca mustaqbalka fog ee Arsenal iyo Chelsea oo laacibkan isku haysta saxiixiisa laakiin Arsenal ayaa waxa la leeyahay waa mid iyadu aad kaga gacan sareysa kooxda kubadda cagta Chelsea Ajax waxay sii wadaa inay dalbato ku dhawaad 50 milyan oo euro mana qorsheynayaan inay hoos u dhigaan dalabkooda sababtoo ah xiisaha sii kordhaya ee laacibkan ugu imaanaya kooxaha Premier League ka ciyaara dagaalka Chelsea iyo Arsenal ayaa hadda bilow ah Chelsea ma awoodo inay lumiso booskeeda inta lagu guda jiro koobka kooxaha adduunka maadaama Arsenal ay ku socoto awood iyo kalsooni Canaries ayaan sidoo kale ka fiirsanaysa bartilmaameedyada kale ee daafacan laakiin Heto ayaa ah mid ka mid ah mudnaantooda koowaad ee dhinaca daafaca waxaana kooxda kubadda cagta Arsenal ay ka faa'iideysanaysaa maqnaanshiyaha ama ku mashquulida Chelsea ay ku mashquulsan tahay koobka kooxaha adduunka ee ka soconaya gudaha Mareykanka taa ayaan rabtaa inay ka faa'iideysto isla markaana 50 milyan oo ay dalbanayso kooxda kubadda cagta Ajax ay hor dhigto isla markaana ay ka soo qaadato daafaca dhexe ee loo magacaabo Joel Heto kaas oo ciyaara kooxda kubadda cagta Ajax Chelsea ayana qarka u saaran in laacibkaasi ay ka aftuubato ama laga aftuubto isla markaana ay aftuubato kooxda kubadda cagta Arsenal oo aad u xiiseynaysa laacibka loo magacaabo Joel Heto kaasi oo daafaca ka ciyaara kooxda kubadda cagta Ajax ee ka ciyaarta gudaha wadanka Netherland dhinaca kale tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Xavi Alonso waxa uu u sameeyay balanqaadkii ugu horeeyay jamaahiirta kooxda Real Madrid taageera tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Xavi Alonso ayaa waxa uu muujiyay sida uu doonayo inuu u daadajiyo habka uu ula qabsanayo ciyaartoyda kooxda maadaama waqtigu uu aad u kooban yahay koor kulanka ugu horeeya ee kooxda koobka adduunka ee ka ciyaareyso gudaha Mareykanka ka soconaya Alonso ayaa yiri wax walba waa in si degdeg ah loo qabtaa sababtoo ah waqti aad u yar ayaynu haysanaa waxaan bilaabi doonaa dhismaha kooxda sababtoo ah 3 tababar kaliya ayaan haysanaa koor kulankeena koowaad ee koobka kooxaha adduunka waxaan u baahannahay inaan yeelano hami fog oo si aan u gaarno ilaa finalka tartankan ayuu yiri tababare Xavi Alonso tababaraha cusub ee Real Madrid ayaa sidoo kale waxa uu adkeeyay muhiimadda ay leedahay isfahamka iyo xiriirka uu la yeelanayo ciyaartoydiisa waa inaan la xiriiro oo aan fahmaa waxa uu ciyaaryahay kasta u baahan yahay waan ogahay in aan ahay tababaraha balse waxaan jeclahay inaan si dhow ula socdo dhammaan ciyaartoydeeda ayuu yiri tababare Xavi Alonso markii la weydiiyay dareenkiisa maalmihii ugu dambeeyay ee uu la qaatay kooxda Alonso waxa uu sheegay waxay ahayd mid aad u wanaagsan waqti kadib waxaad si tartiib ah u baranaysaa ciyaartoyda waxaadna dhisaysaa xiriir aad muhiim u ah oo adiga iyo ciyaartoyda ah ayuu yiri Xavi Alonso hadaladan Alonso ayaa muujinaya sida ay uga go'an tahay isaga iyo shaqaalaha farsamaduba oo wada socda Real Madrid ay si degdeg ah loogu diyaariyo tartanka iyaga oo hiigsanaya inay gaaraan ilaa heerka ugu dambeeya ee tartanka FIFA Club World Cup oo gudaha Mareykanka sanadkan ka soconaya isla markaana xalay toole si rasmi ah u furmay Alonso ayaana jamaahiirta waxa uu sheegay in ay u diyaar garoobaan Real Madrid cusub isla markaana ay ka go'an tahay inay ku guuleystaan tartanka cusub ee sanadkan ka bilowday gudaha Mareykanka ee FIFA Club World Cup dhinaca kale laacibka u ciyaara naadiga Atletico Bilbao iyo xulka qaranka Spain Nico Williams waxa uu si cad u sheegay rabitaankiisa ah inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona Nico Williams ayaa waxa aad u xiiseynaya kooxo dhowr ah oo ka ciyaara qaaradda Yurub waxaase ugu waaweyn Bayern Chelsea Arsenal iyo sidoo kale Barcelona ayaa iyagu ka mid ah kooxaha sida weyn u xiiseynaya laacibka lagu magacaabo Nico Williams balse isaga ugu
dambeyn waa uu hadlay afka ayuu furtay waxaana uu sheegay rabitaankiisa ah inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona laacibkan ayaana waxa uu asxaabtu ugu leeyahay kooxda Barcelona waxa uu sheegay inay riixaan wax walba ama sidii uu ku imaan lahaa garoonka Camp Nou markaana Barcelona ugu ciyaari lahaa Nico Williams ayaana mudnaanta koowaad kooxda uu rabo inuu ku biiro waxa uu ka dhigtay kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo marar horena laacibkii saaxiibkiisa ay Lamine Yamal uu marar badan uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ka qarab ciyaaro Nico Williams isla markaana mar kale Barcelona ay ku midoobaan Nico Williams ayaana isagu waxa uu cadeeyay rabitaankiisa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona isla markaana waxa uu saaxiibadiisa dhow ee kooxda Barcelona uu u sheegay inuu jeclaan lahaa inuu la ciyaaro isla markaana uu ka dalbaday inay riixaan sidii uu ku imaan lahaa garoonka Camp Nou ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Barcelona ugu dambeyntii saaxiibayaal xalay waxaa si rasmi ah loo soo furay tartanka koobka kooxaha adduunka iyadoo kulankii ugu horeeyay ay ciyaareen kooxda Inter Miami oo hogaamiyo Lionel Messi iyo sidoo kale kooxda Al Ahly ee ka ciyaarta gudaha Masar kulankaasi ayaan waxa uu noqday mid barbaro isagoo ku soo dhamaaday balse caawa ayaa laba kulan oo kale oo ka kala tirsan group B iyo sidoo kale group C la ciyaaraya kulanka ugu adagna caawa waa mid ka dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo sidoo kale PSG oo sanadkan ku guuleysatay UEFA Champions League 4 saacadood ayuuna kulankan soo galaya waana kulan ka tirsan groupka B ee tartanka koobka kooxaha adduunka iyadoo kulanka kalena caawa hal saac xilliga fiidka hore uu soo galayo kaasina waxa uu dhex mari doonaa kooxda Bayern Munich iyo koox lagu magacaabo Al Qudud City FC ayuuna dhex mari doonaa koobka kooxaha adduunka ayaana xalay si rasmi ah waxa uu furmay gudaha Mareykanka iyadoo kooxda uu hogaamiyo Lionel Messi ee Inter Miami barbaro goolaan ever ay la gashay kooxda kubadda cagta ee Al Ahly ee ka ciyaarta gudaha wadanka Masar gudaha daawadayaal inta ay ku soo go'goonaya barnaamijka faqada ciyaaraha dalsan TV barnaamijka mid lamid ah saaxiibayaal